maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago sida loo sameeyo creamka oo keega la mariyo. sida hadda keegan idinka soo horjeedo kala creamka oo sidaas loogu sharaxay oo kala duwan. insha Allah waxaan rabaa inaan idinla wadaago creamka keega. insha Allah butter cream waaye creamka maanta aan isticmaali doono. haddii ay tahay fadlan markii ugu horeysa aad soo booqatid ama aad aragtid channelkeena insha Allah subscribe dheh. bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maasha Allah وإن السلام يا أنت كعسب جنال كي أنت يقصوا بيردون بليز وحدين قعدنا إن شاء الله الله لي مركب فيديو نأرتي إنا مركب هرب لايك تأثرتي إن شاء الله هدي أتكي سبسكرايب أثرتي لايك تأنو ودي رجل سد بإذن الله الكريم ما أنت محاربة إنا إذا لو ذاك سيد الله سميه بات كريم أما كريم كيجا سيدا وجدين وحوها كريم وحوها باتر أما سبق قاسو أنسو دلالية أو يعني قبوق بدنا أنكسو بحيو ayaan rabaa inaan insha Allah idin wadaago. marka hore mashiinka ayaan ku shubay. aniga gacanta kuma sameynaa insha Allah hadaa mashiinta gacanta haystid iyo hadaa tan haystid waa isku mid, laakiin tan ayaa ka yara fudud maadaama aniga oo dhar aan soo bi laakiin midaana isticmaala. marka maxaa rabaa inaan idin wadaago sida loo sameeyo butter cream. hadda sida u jeedin butter creamka markii aan soo qas marka hore sidoo ahaa jaalo ayuu ahaa. markii aan qasay ilaa 3 daqiiqo 4 daqiiqo si fiican sidaas ayuu ku soo baxay. kadib waxaan ku darayaa icing sugar da butter creamka video hore aan ka suubiyaa jirto oo mid waliba cabaar aan uga hadlay. butterka marka oo cabaar ah shiidido kala sidaas inuu noqdo ayaa la rabaa oo white uu ku noqdo. butter creamkii iyo hadda butterkii iyo maxaa isku hagaajisanayaa iyo sokortii marka si fiican ayaan isku qasay. markaan isku qasay maasha Allah sida u jeeda hadan sidaas uu ku soo baxay oo white ah oo qurux badan oo smooth ah. marka sidan ayaa loo hagaajiyaa. kadib waxaan ku darsanayaa in yar oo vanilla ah. waxaas hadda biyaha aan ku daraa u jeedid muxuu ahaa vanillada qoyan. hadda iyadoo budaha haystidoo kale tan waa ku darsan kartaa insha Allah. fadlan waxaa laga codsanaa insha Allah inaad channelka subscribe noo saartid noo share gareysid biidnillahi alkariim. deeqa home cake waa channel cusub haddii aad daneynaysid buskutka keegyada waxaasoo dhan insha Allah waad ka fahmi doontaa biidnillahi alkariim. hadda sidaa ujeediin creamkeeni waa diyaar maasha Allah diyaar ayuu ku soo baxay. iska fiiri wixii fool bilaayo mujeedaa siduu u cad yahay u qurux badan yahay isku haysto. hadda waxaa waayaa ku dhahay wax khibrad loo leeyahay idin dhihin karaa insha Allah oona ah anaga keegaga ayaan sameynaa oo dharada arooska birthday-da bye-bye-da welcome-ta sii socda soo socda yani wax walba xaflad oo keeg ku saabsan ayaa hagaajinaa. marka maanta creamkii ayaan rabay inaan idin wadaago oo keega hadda videogan ugu horeeyay keega bye-bye-da aan soo geliyay creamkiisa ayuu ahaa. waxa idinka ballan qaad inaan idin soo geli doono. marka creamki markuu sidaas igu soo baxay oo quruxda badan laba qayb ayaan u qaybinayaa creamka. markaan laba qayb u qaybiyo qayb ayaan rabaa inaan color ku darsado qaybna aan white-keeda ku dhaafto. ma fahamteen qayb inaan color ku darsado aan qaybna aan white-keeda ku dhaafto. marka insha Allah qaybta oo maxuu ahayn dad hadda oo mashiinka marka hore dabaaquli ku jiro aan kulishida waxaan ku darayaa colorka pinkiga ayaan ku darsanayaa insha Allah. colorka pinkiga adi ilaa iyo waxaan ku darayaa 3 dhibcood. markaan 3 dhibac aan ku darano waan ku qasaa insha Allah sidoo ku soo bax color pinkiga oo qurux badan ayuu ku soo baxayaa biidnillahi alkariim. marka maxaan ku leeyahay insha Allah hadda haddii aad daneynaysid yaa sida loo sameeyo keegaga kareemka loo mariyo loo sharaxo buskudyo kala duwan ayu macmacaan meeshan u jeedaa. hadda xarunta macmacaanka waa kala kulmaysa insha Allah waana arkaysaa yani wax badan su'aalaha waana soo weydiin kartiin ku saabsan macmacaanka wixii markaas aartidoo macaan waa soo gelinaynaa insha Allah. maxaan rabnaa inaa adinkana aan noqotiin intan fiirsanaysa ee kasii bartaan ee noqdaan dad maasha Allah keega ku sii shaqeeya aroosyada xafladaha wax walba ka suubiyo. creamkii marka hore ta keeg ayaan soo marinayay laakiin hadda marxaan dhahay videoga hore creamka ayaan idin wadaagayaa. markaan colorka pinkiga aan ku darsaday keega ayaan soo mariyay waa arki doontiin keeg gadaal ka arki doontiin. kadib keega markaan creamka aan mariyay ayaan haddana waxaan ku darsaday color guduud ah. sidoo maxaa rabaa guduudka oo yani pinkiga marka hore maadaama uu light ahaa kana uu color noqdo sababtoo ah hadee wixii isku color noqdaan creamka kor ugu buufinaysid iyo kii amaris hadee isku color noqdaan wixii isku soo baxaya. marka maxaa la rabaa waxooga kala duwan. hadda sida u jeedid keegan oo kale ayaa marka hore keegan ayaa mariyay. marka aan mariyay marka maxaa rabaa inaan sharaxaadan oo kale hadirtaan colorkii aan daaga ka dhigay
ayaan korka ka marinayaa marka haddii aan asigan ku dhaafin lahaa oo aan mari lahaa lama kala aqoonsanayo yacni wixii hal xabbe isku noqonaya marka maxaa la rabaa kalar ka duwan oo indhaha qaban karo marka isla pinkiga leen red ku daray marka muxuu noqday light iyo wuxuu kala noqday mid qafiifa iyo kalar oo yacni daag uu noqday marka sidaas oo kale ayaan soo marinaya hadda waxaan keegan u jeedid waxa waaye keeg muxuu ahaa bye bye floweradaas oo kale taa lagu suubinaya haddii aad jeceshahay cilaanka aad saaran tahay hadda keeg hadii lagu suubiyo ka warna sheekayhe marka maxaa waa idin dhihi lahaa insha Allah haddii aad keeg rabtid oo soo dalbanaysid insha Allah waad soo dalban kartaa biidnillah alkariim marka maxaa idin leeyahay insha Allah fadlan haddii aad jeceshahay inaad baratid sida loo sameeyo keegaga iyo buskudida keeg kala duwan bye bye wax walba sida kareemka loo mari kareeyaasha xitaa hal nooc maaha mid waliba nooc ayaa maalin loo mariyaa insha Allah halkan waxa ka helaysaa ma sha Allah qishqa aad iyo aad wanaagsan aadna insha Allah bari aad ku sii howlgali kartid oo hooshada aad hor ugu wadan kartid marka insha Allah videoga mar allaale markaa soo gashid like u taab anaga dhiirigelinayna oo noqonaysa insha Allah markii aan kareemkii aan mariyay sharaxaad kadibna waan ku salaaxaya oo kareemkii kore ayaan ka qaaday insha Allah waa arki doontaa sidoo ku soo baxa keeg aan caadi ahaynin qurux badan haddana maxaa kaaga daran macaanka hadda keegan oo deeq home cake sameeyay hadii aadan dhadhaminin ama aadan cunin ma adigaaba keeg cunay yaa hadda wali wax way ku dhiman yihiin aan ku dhihi lahaa marka dhamaan waa ku soo wada wareejinaya kadib keeg markii aan ku soo wada wareejiyo oo aan soo sharaxay sidaas ayuu ku soo baxay kor ayaan ka soo buufsaday isla creamka horeeto oo creamkii colorka marka horeeto red aan ku daray pinkiga waa kaas midkaas hoos u ahaa kan maxuu ahayntood kalarkii guduud ayaan ku daray marka muxuu noqday pinki oo daag ah oo aad iyo aad qurux badan marka maxaa laga codsanayaa insha Allah haddii aad jeceshahay inaad sidaas oo kale u baratid si ka sii qurux badan inaad channelkan ku soo xirantid biidnillah alkariim waana ma sha Allah waana soo geliye sida creamada la oo bata creamka loo sameeyo waa u jeednaan insha Allah waana soo geli doonaa ayagoo badan yacni iyo keega si kala duwan insha Allah maxaan idin leeyahay please share gareeya markuu horeyso buqaday tahayna like ta saar insha Allah haddii aad ka heshidna ma sha Allah like ta noo saar haddii aad ka heshid subscribe ta si haddii aad ka sii heshid wixii tala iyo tusaale commentiga noogu soo haddii aad sii heshid asxaabtaada la wadaag insha Allah maxaa rabnaa gabar walba inay gurigeeda ku samaysan karto birthday-deeda iyo birthday-da ilmaheeda iyo wax kasta iyo welcome xaaji iyo bye bye xaaji wax walba xaajiyo yacni wax walba qof markuu ku imaanayo kale aad keegaadeer ka soo tuurin kartid halkan ayaa waxaad soo dhan aad ka baranaysaa insha Allah marka maxaa idin leeyahay biidnillah alkariim channelka rukunta waa channelkiini markaa subscribe saartid beelka meesha yar ee koorta iska hubi insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.